كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد. toddoba shay ee burinaya soomka. haddii aad taqaanid qodobadan burinaya soomka kama walwalaysid inuu soomkaaga buro. waa muhiim iyo lagama maarmaan inaad taqaanid qodobadan soo socda. kow, cunitaanka iyo cabitaanka. wax waliba oo dhuuntaada hoos ugu aroora afkaa ka galaan ama sankaa ka galaane ayaa loogu yeeri karaa cunitaan iyo cabitaan, wayna jebinayaan soomkaaga. labo, sidoo kale wax waliba oo la halmaala ama la mida cunitaanka iyo cabitaanka ayaa burinaya soonka, sida irbadda aynu isticmaalna xilliga aynu xanuunsanayno. irbadaha oo aad ka qaadatay xididada waa xaalad uu soomkaaga ku burayo, balse haddii aan isticmaalay sheeye aan buuxinaynin booskii cuntada ama cabitaanka sida cirbado qalajiyayaal ah oo kale ama antibiyootig, kuwaasi ma burinayaan soomkaygii. saddex, shayga saddexaad ee soomkaaga burinaya waa hunqaacada ama matagga ulajeedka ah. cunto badan ayaan cunay kadibna deganaansho la'aan ayaan dareemay, farteeda ayaan afka geliyey si aan isaga matajiyo. tani soomkaygii way burinaysaa, balse haddii aan matag anigu aan ku talagelin taasi waxba ima yeelayso, soomkiina ma burinayso. afar, dhiigga oo aad iska keento. tani waa xaalad kale oo soomkaaga uu ku buri karo, waana muhiim inaad ogaato. haddii ay noqoto inaad dhiig u shubto qof xanuunsan, taas samee maqribka kadib, waa haddii aysan xaalad degdega aysan jirin. shan, toobitaanka ayaa isna ah xaalad kale oo soomkaaga burinaysa. lix, biyobaxa. maxaan ka wadaa biyobaxa? waa in xubnaha taranka ee qofka ay soo saaraan biyo, kuwaas oo ku yimid qaab shahwo ah oo aad iska keentay. arrinkanna dhalinteena aad ayuu ugu badan yahay waayadan dambe. toddoba, galmada ayaa noqonaysa xaaladda toddobaad ee soonka burinaysa.